بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. سورة الناس مكية وآياتها 6. 10 كانوا عاوحوا قبل لابن هيا سورة الليلة سورة الناس أما قل أعوذ برب الناس. وقرآن كالسورة وقوه الصيدة تفسير كانوا نخاص أيو كسو باللابن يا قرآن. suuraddan suuratu nnaas baa la yidhaahdaa. suurad walba qur-aanka waxay leedahay magac, shay suuradda ku dhex jira ayaana loogu magac daraa. waxayna ka mid tahay suuradihii ku soo degooday nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markii la sixray oo sixir furkiisii lagu soo dejiyey. waxaa ku sugan magangal ilaahay la magan galo oo acdaada laga magan galo oo shaydaanka laga magan galo oo sharta jinniga iyo insiga laga magan galo oo waswaaska shaydaanka laga magan galo oo kahaanada iyo waxa xun oo dhan laga magan galo ayaa suuraddan ku sugan walaalayaal. bismillaahi ilaahay magaciis allahaasoo arraxmaani naxariista caamka ah naxariista, arraxiimi naxariista gaar ahaaneed naxariista ayaan abtadi'u magaciisa ku bilaaban hayaa. qul waxaa tidhaa yaa ashrafa alkhalqi, ilaahay makhluuquu abuuray nabiga ugu sharafta badanow, acuudu waxaan magan gelahayaa birabbi nnaasi dadka oo dhan rabbigii abuuray, rabbigaasoo meliki nnaasi dadka meligooda ahaa ama boqorkooda ahaa, rabbigaasoo ilaahi nnaasi dadka ilaahooda ahaa, min shari alwaswaasi midka wax waswaasiya shartiisan ka magan gelayaa dheh, midkaa wax waswaasiyo oo alkhannaasi dhuumashada badan, qarsoomidda badan, libridda badan, dibmaridda badan oo gadaal u baxaya oo dib u gurashada badan oo dib u guran haya markii ilaahay magaciisa la xuso oo ilaahay la magan galo ayuu gadaal u guran hayaa oo fogaanaya oo dib u kaaga sikanaya. markii ilaahay xuskiisa laga tagana oodan ilaahay aadan magac bisinka ilaahay ku bilaabanin ama aadan ilaahay ka magan gelin shaydaanka, markaas wuxuu rabo ayuu samaynayaa. alladii kaasoo yuwaswisu waswaasinhaya fii suduuri nnaasi dadka xabadyaalkooda iyo laabyaalkooda iyo qalbiyaalkooda ayuu waswaas iyo tashwiish ku beerayaa oo min aljinnati jinni iyo wannaasi dadba ka kooban. bismi illaahi araxmaani araxiim qul waxaa tidhaa yaa ashrafa alkhalqi, khalqiga ilaahay abuuray midkii ugu sharafta badnaayow waa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam, acuudu waxaan magan gelayaa birabbi nnaasi dadka rabbigoodii, ilaahi nnaasi dadka ilaahoodii ah, waxaan rabaa meliki nnaasi dadka meligoodii ah boqorkoodii ah, ilaahi nnaasi dadka ilaahoodii ah, min shari alwaswaasi midka wax waswaasiya shartiisaan ka magan gelayaa, midkaa wax waswaasiyo alkhannaasi dib u gurashada badan ama alkhannaasi libridda badan ama alkhannaasi isqarinta badan oo qarsoomayo qarsoomidda badan. markii ilaahay la xuso ayuu qarsoomaa. alladii kaasoo yuwaswisu waswaasinhaya fii suduuri nnaasi dadka xabadyaalkooda oo min aljinnati jinni iyo wannaasi dadba ka kooban.